to provide technical support for the enhancement of the capacity of the Somalia state institutions, particularly the national defense, public safety and public service institutions. For this workshop that they're on is our start to help them in that sense, in that direction, so that they can create an assembly, know the processes of a parliamentary assembly, legislative assembly. And I think that is a start to what we are helping them on now, and as we go forward, we will continue to support them. As it is part of our mandate to support all the institutions, in the Somali institutions under the FGS, it is part of our mandate therefore to support the Galmudug Interim Assembly. la socotaan aqoonta ama waxa bixinayo walaalo Soomaaliyeed this is a first training we did AMISOM. Thus we are very grateful to the AMISOM for facilitating this seminar. Also my great honor to say that thank you and the effort they put the AMISOM. faa'iido wuxuu u yeelanayaa waxyaabihii annaga shaqadiin hor yaalla ayuu wax nooga fududaynayaa baahi badan ayaan u qabnaa barkee hay'ad sharci dejin waaye sharciyadda aan dejinayo wuxuu naga siinayaa training waaye nala ku siinaya sidii wax u qabanay noo fududayn lahaa waa training aad aan ugu baahnayn haddaan nahay xildhibaanada Galmudug aan u baahanaa in trainingkaas naloo badiyo oon hal mar iyo laba iyo saddex naloo kaga dhigin trainingnaas naloo badiyo aad aan ugu baahnaan lahayn intaas bari aad uga faa'iideysataan nimanka khubarada iban xataa casrada waxaan la xariir programka wadada loo socdo meesha loo socdo inaan isla wada falanqeyno rag si gaar ah loo xulay raggan meesha fadhiya shaqo fudud ma ahan sharciyada aad ku shaqeynaysaa aqoon ay u baahan tahay inaad si fiican u taqaano challenge-yada jira waxaa ka mid ah shaqada aad ku shaqeynaysid oo adiga experience-keeda ma taqaana aan hore u lahayn tan labaad caqabaadka aad kala kulmaysa dadka mar walba markii aad ma taqaanaa shuruuc ma taqaanaa la baasgaraynayo kaleeto sometimes dadku ma yaqaanaan faa'iidada ay leedahay iyo ma taqaanaa dhibka ay leedahay intaba ma yaqaanaan baarlamaanka laftiisu aqoon badan ma lahan oo dhanka ma taqaanaa khibrad shaqo ah marka challengesku waa iska badan yahay laakiin mar walba haddii wixii aqoontooda la barto baarlamaanku ay qaataan oo ayagu ay bartaan ayagaa gudbi doono ma taqaanaa message ahaan mujtamaca ay u shaqeynayaan u gudbi doono ayaguna wax badan ay faa'iidi doonaan saan rajeynaya insha Allah tabaaraka taala